الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاليال وايد السلامي ومركلة ولاشين رود أحمد oo idin wado muuqaal kale oo cusub asxaabteyda sharafta badan soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada insha Allah biidnillaahi kariim waxa idin wada cabitaan oo healthy ah oo aad iyo aad idin anfici doono insha Allah oo aad ugu heli doontaan walaalayaal soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada insha Allah marka maxaa rabaa cabitaan oo u jeedaan fruit kala nooc meesha ii yaalo marka waxaa jecelaystay in idin la share gareysto cabitaan healthy ah oo caafimaadka u fiican insha Allah meeshan waxaa ku haystaa qajaar laba xabo oo qajaar ah laba xabo oo liim orange ah hal xabo tufaax hal xabo liin bambeelmo beetroot ama beetraaf iyo laba xabo oo carrot ah marka insha Allah waxa ka dhigayaa hal cabitaan ma aha dhowr cabitaan ka sameynaya beetrootka iyo maxaa la qajaarka waa isku shiidaya liinta iyo carrot-kan waa isku shiidaya insha Allah tufaaxa iyo liin bambeelmadana waa isku shiidaya insha Allah walaalayaal waxay kala noqonaysaa marka waxay noqonaysaa ilaa 3 cabitaan kala nooc ay noqonay insha Allah walaalayaal soo dhawaada channelka da ku cusubtiin subscribe saar gambaleelka furo like saar share dhe asxaabtaada la wadaag waxa kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa asxaabta igu cusub oo igu soo biiro mardhow waxa idin dhahayaa walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada gabdho iyo wiilal assalaamu calaykum marka insha Allah hadda waxa sameynayaa waa soo dhaqay marka waa soo jarjarayaa insha Allah waa kan asxaabey waa u jeedaan hadda waxa ka bilaabaya marka carrot-ki iyo waxa ka bilaabaya iyo orange-ga marka orange-ga waa soo jarjaray waa soo fiiqay carrot-kan waa soo xoqay marka insha Allah asaga hadda ka bilaabanayna marka blender-ka hadda meesha yaalo waxa ku darsanaya orange-ga ku ridaya ka bacdina carrot-ka ku darsanaya insha Allah asxaabey soo tijaabiya cabitaankanita ma sha Allah cabitaan caafimaad leh waaye wallahi aad iyo aad u anfici doona ciyaalkan aad iyo aad u anfacaya ilmaha aan cuntada cuneynin oo kale ma sha Allah hadii la siiyo ma sha Allah caadi ma ahana ku dhahay ma sha Allah marka hadda 4 qaando oo sokor ah ku daraya waa kaas waxa kale ku daraya oo kale oo meesha yaala biyo baaquliga siriska ah oo buuxo oo biyo iyo haafkiisa ah ku darsanaya maadaama aan rabo in hal koob le ka dhigo marka ma ka badinayo biyaha halkaas baaquliga siriska ah waaye iyo haafkiisa si xataa haafka ma buuxo marka intaas seetiya had isku soo shiida baraf aan soo jijibiyina meesha yaala waa ku darsanaa marka insha Allah intaana had isku soo shiideena waa isku soo noqoneena qaybta labaad aadan u soo noqoneena insha Allah kana asxaabta u jeedaan saas uu noqday ma sha Allah quruxdaas uu soo baxay caafimaad waay wallahi dhadhanka carrot iyo orange isku shiido maxaa ka macaan badan ma sha Allah waa kaasa intaasna haddana waxa bilaabanayna qaybta kale oo cabitaanka hadda meeshaas waxa yaalo hal xabo beetraaf ah iyo laba xabo qajaar ah marka intaas had soo jarjaraa waa kaasa asxaabay beetraafka waa kaas qajaarkana waa kana asina labadii xabo oo soo jarjaray marka hadda blender-ka ku ridaya insha Allah asigana waa soo shiidaya sidaas la eg aan sameeyna insha Allah marka walaalayaal sidaas ula socda waxa ku daraya asina 4 qaando oo sokor ah aan ku darsan doonaa iyo biyihi marka insha Allah walaalayaal idinkana ila soo tijaabiya soo arka insha Allah commentiga hoosna iyo wareeb hadii Ilaahay ka dhigo waa ka heli doontaan ana hubo insha Allah walaalayaal idinkana ka faa'iideysta mar walba waxa jecelahay waxyaabaha faa'iidada leh in idin la wadaago insha Allah idinkana walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee ila socotaan oo mar walba iigu xiran tihiin ma sha Allah waa ku mahadsantihiin marka hadda waa soo shiidanaya blender-ka xataa ma soo dhaqin sidiisa waaye waa kula soo shiidaya dib ma lahan waa kaasa u jeedaan quruxdaas ku soo baxay ma sha Allah marka haddana waxa sameynaa qaybta saddexaad ee u dambeysay aan diyaarsan doona insha Allah liin bambeelmadi iyo tufaaxa waa kana walaalayaal liin bambeelmada qobka ka soo diiray waa u jeedaan tufaaxina waa kaasa asigana meeshaas u yaala halka xabo ma sha Allah caafimaad waay wallahi ma sha Allah waa keeli doontaan marka liinta hadda waa jarjaraa mira dhaxdeeda ma lahan liisho waaye marka insha Allah
waxaas kuwaas yariiska ee wax waa ku mirmiro waaweyn ee ma ahan marka hadda waa u jeedaan waa kaas haddana waxaan sameynayaa tufaax yaa jarjaraya asigana marka walaalayaal idinkana ila soo tijaabiya soo arka insha Allah asxaabtiinana u sheer gareeya ha iga hilmaamin inaad sheer ku dhufatid insha Allah muhiim ay tahay like tan ha ka hilmaamin insha Allah kulligiis marka waa soo jarjaray marka dartan waa soo shiidanayna insha Allah sokorti iyaan ku darsanaya marka diyaar way hadeertaan waa kaas maxaa la dhahay 4 qaando oo sokor ah oo ku darsan doona biyaha waa kaas haddana waa ku daray afar qaando oo sokor ah qiyaas waaye ma sha Allah waa kaas asxaabay kulligiisana waa ku soo wada diyaariyay u jeedaan quruxdaas ma sha Allah oranjigan waa kaas geeska oranjiga ka saaray beetroodka iyo qajaarkina waa kana maxaa la dhahay liin bambeelmada iyo tufaaxina waa kaas ma sha Allah tan kaleeto beetroodka ama qajaarka iyo beetroodka marka isku shiidid waxaan u maleynaysaa dhadhanka qaro oo kale maadaama qajaarka qaro camal uu carfaayo uu dhadhamaayo macaana ma lahan sida caadiga ah beetroodkana guduud waaye laakiin xogaa dhadhan macaan yar oo leeyahay caraf ma lahan marka labadoo markii isku daro maxaa ka soo baxaya cabitaan qara camal ah oo laakiin ma sha Allah beetroodka aad iyo aad u caafimaadka ugu fiican yahay wadna garaaca iyo wadna xanuunka iyo maxaa la dhahay ma sha Allah caafimaad u yahay marka insha Allah walaalayaal cabitaankaanid sidaas uu ku soo baxay quruxdaas uu ku soo baxay insha Allah asxaabay waxa inaga codsanaya inaad like ii saartaan share dhahdaan asxaabtiina la wadaag si ay ayagana uga faa'iideystaan ma sha Allah ilmaha cabitaankan waa loo helay ma sha Allah marka insha Allah walaalayaal aniga mar walba waxa jecelahay inaan mar walba idin la wadaago wax kasta oo aniga aan sameysanayo insha Allah walaalayaal soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawaada insha Allah marka walaalayaal waxaan iga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكيل ما من لايك شير إن شاء الله isku soo noqod wacan oo wanaagsan fiidiyoga xiga ka qurux badan ka xiiso badan insha Allah walaalayaal fiidiyada ayaantan waa soo dadaahiya insha Allah waxa rajeenaya inaa soo badiyo salaam calaykum